marka hore alle ayaan mahad dhammaanteed iska leh ilaahay baan u mahad celinaynaa suuka ayaa keenay munaasabadan nabadan xafladan iyo sidaa caawa loo fadhiyo mahad dhammaanteed alle ayaa iska leh waxay noo tahay fursad weyn inaan caaway ugu xafladaynayno golaha deegaanka iyo guddoonkooda ay doorteen degmada Balanballe oo ah degmo Soomaaliya magac iyo maamuus ku leh galmudugna si gaar ah siday ugu leedahay Soomaaliya ugu leh marka la yiraahdo Balanballe qof kasta oo Soomaaliya wuxuu xasuustaa difaaca dalka wuxuu xasuustaa geesiyaal badan wuxuu xasuustaa guulihii la gaaray marka waxaa Balanballe ay u tahay runtii wax qalbiyada dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba degmo ay xasuustaan weeye Balanballe inay leedahay ama yeelatay ama dadka degmada reer Balanballe ay dhisteen ama doorteen golihii deegaanka guddoonkoodii doorteen caawan waxa xafladaynayno waxay leedahay aragti gaar ah waxay leedahay muhiimad gaar ah waxaan leenahay maamulka iyo golaha deegaanka hambalyo waan idin ducaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mas-uuliyaddaas laydin idmaday inaad ku guulaysataan waana ku guulaysanaysaan insha Allah calaamad fiican iyo bilow fiican ayaa ka muuqda weliba aad iyo aad runtii kalsoonida iyo sida uu ugu kalsoon yahay shaqada hortaala iyo aragtida uu ka leeyahay guddoomiyaha aad bay noo dhiirigelinaysaa waxaan leenahay guddoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo golaha deegaanka iyo shacabka reer Balanballaba waxaan u rajaynaynaa guul baraare iyo barwaaqo iyo horumar insha Allah intaas kadib waxaan rabaa waxaa la yidhi laba arrimood ayaa aada loo xusay midda ah degmooyin badan oo galmudug Balanballe inta degmooyinkaas gaartay in ka yaraa soo gaartay iyo qodob kale oo dib u heshiisiinta iyo shaqaaqooyin muddo dheer ka soo jiray Balanballe iyo nawaaxigeeda waxaan rabaa inaan in yar ka idhaahdo horta reer Balanballe iyo meelaha shaqooyin ka jiraan waxyaabaha horumarka lugta haya gaar ahaana Balanballe aan dareemayno inay tahay runtii xarig ku xiran ama caqabad hortaala waxa weeyaan dhinaca nabadgelyada gaar ahaan ku dhawaad 40 sano shaqaaqooyin joogta ama dhacdooyin joogta ayaa deegaanadan ka socday oo nasiib darro weyn ah taasna waxay keentay inaysan runtii meel wax un saasaan colaadeed ama wax intaa muddo la eg jiitamaya ay ka jiraan waxa horumar ka qabsoomi kara qof wali waa dareemi karaa labadaas shay waa isku xiran yihiin marka waxaan rabnaa ninkii muxuu yidhi lumay u yimid nina yidhi tilmaan wuxuu yidhi niyahow aan ku tilmaame 4 qiblo ma kala taqaan ma xusan tahay hadda ma ogta macnaha maadaama aad lusan tahay wuxuu yidhi maya marka hawshiisu iska wato de tilmaantii aan kuugu imid oo aan lunsanaa imaad sheegin bu niyahow adiga dhibka aad qabto iyo problemka ku haya ma ahan mid xalka uu leeyahay anigu aan qaban karo waxaad u baahan tahay inta gacanta lagu qabta meeshii aad rabtay in lagu geeyo taasna kuma samayn karo waxaan rabnaa guud ahaan reer galmudug gaar ahaan reer Balanballe iyo deegaanada ku xeeran ama deegaanada u dhexeeya Balanballe iyo Gurceel problemka dhabtaay wuxuu yahay 40 sano wax soo jiitamayay oo adduunka qaraseeg ah oo meelahan ka jira shaqooyin si joogto ah saga socda waxay la dagaalamayaan dadka wada jirkooda iyo walaalnimadooda waxay la dagaalamayaan horumarka
waxay la dagaalamayaan magaaladan magaca iyo maamuuska leh sidii ay ku dhaqaaqi lahayd arrintaa waxaan rabnaa dowladdu waa u diyaar gobashiina waa ku baaqday horena waa ugu ballan qaaday wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminaya wasiir cabdiwaayeel shaqadaas waa ku jirtay waana ku jirtaa waana la dhigayaa gobasheedii iyo nabadeynteedii laakiin dadka isqaabayntooda iyo qalbigooda inay ka soo go'do dowladda si gaara uma saarnee shacabka weynahay saaranta waxaan rabnaa inay idinka soo go'do wasaaradda iyo dowladda galmudugna garab ku siisaan mushkuladaasna ay harto dadkuna inuu wada degan yahay inuu isu yimaado inuu nabadiisa iyo walaalnimadiisa iyo ehelnimadooda ay usoo noqotay wax ku qabsan karaan horumarna ku gaari karaan dowladda galmudugna waxaan rabnaa inaan ka ballan qaadno balan balle way u roonaanaysaa si il gaarna waa ku eegsaa dilaayada adinkuna naga ballan qaada inuu bartaas madow ay meeshaas ka foqdo oo ay nabad noqoto weliba runtii aad baan u farxsanahay guddoomiyaha hadda hadaladiisii iyo niyadsamida uu qabo iyo isku dayga bilowga ah ee markii ay kusoo baxeen doorashadaba ay isku dayeen taasna wayna dhiiragelina dhinaca kalena waan hubnaa fariintan midaan ku gaar yeelayno balan balle maaha meelaha dadka kalena waa intaa in la-eg iyo kasii badan waxaan dadejinaynaa gogashaas nabadeed oo aan doonayno waxyaabaha yarka ah oo dib u dhaca ah oo colaadahaas yar oo aan hari waayo ay leeyihiin inay meesha uga baxda aan ku doonayno in ilaahay subxaana watacaalana waa tala saaranaynaa shacabkayagana waxaan ka codsanaynaa sharafta leh inay garab buuxa ku siiyaan dowladda dhibkaasina meeshaas ku haro intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan uga baaqo dhammaan saaxiibada soomaaliya taageera guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka doorashooyinkoodii golayaasha deegaanka samaystay iyo guud ahaan galmudugba inay taageero buuxda u fidiyaan gaar ahaan waxaan rabnaa degmooyinka sida gaarka ah aan u sheegnay degmada balan balle in waxaan codsanaynaa gacan gaara iyo mashaariic iyo horumarin gaara laga sameeyo lagana il gaarana lagu soo eego wasaaradaha oo dhanna waxaan leenahay arrintaa u istaaga marka meelaha kalea naga badsaday mashaariicdii iyo horumarkii reer balan balow markiina waa ladii soo leexinayaa waana lagu dadaalaya adinkuna dhamaa waxaara insha allah waxaan rabaa marka taayintaas uga baxo dalka walaalayaal wuxuu ku jiraa dagaal lagula jiro cadowga khawaarijta ah waxaad og tihiin deegaano badan oo galmudug ah iyo soomaaliya in badan oo ka mid ah iyo cadowgaasi dhibaato joogtaa ku hayaan muddo dheerna ku hayeen maantay waa lala dagaalamay waa loo soo istaagay degmada shacab weynaha reer balan balle waa u mahad celinayaa gurmadka iyo dagaalka lagula jiro khawaarijta qeybtooday ka qaateen haddana waa looga sii baahan yahay waxaan rabnaa cadowgaas saacaddaas hadda aan calimasaarkii maamulka iyo golaha deegaanka degmada balan balle u fadhino geesiyaal mujaahidiin ah ilaahay subxaana watacaala ka iibsaday dhiigooda sidii sharciga islaamka tilmaamaysay ayaa dagaal kula jira khawaarijta oo la dagaalamaya oo duurka u jiifa oo xabadda u wada oo muddo dheerna ugu jira waxaan rabnaa inaan dhammaanteen ka wada qayb qaadano dagaalka khawaarijta inta safka ku jirta dagaalka ku jirta sida joogtada ah maantadii lasoo dhaafay dagaallo looga guulaystay aada iyo aada waxyaalo weyn loogu geystay baa soconaya caawana tallaabooyinkii kale sideebaday u socdaan waxaan rabnaa dadka reer galmudug guud ahaan gaar ahaan mar walba meeshaan joogno degmada reer balan balle oo degmadii
geesiyaal badan oo Soomaaliyeedna ay ku qaateen taariikhdoodii reer balan ay yihiin ay ka mid yihiin dadka ugu horeeya marka la tilmaamayo difaaca dalka cadow ka xun Soomaaliya ma soo marin qawaarijtaasi waxaana si gaar ah inaad qaybtiina iyo garabkiina uga qaadataan waa ka qayb gasheen waa soo gurmateen deeqdiinii iyo garabkiinii waa soo gaaray jiidaha hore iyo dagaalka lagula jiro ciidamada ku jira waa soo gaaray haddana waxaan rabnaa deeqdii iyo dadkii iyo garabkii in lagala qayb galo hadday hadda naga dhamaato hawshaan anaga gacanna waxaan horaan u sheegnay galmudug inay gacanna dhismaheeda iyo dib u dhiskeeda iyo dhiirigelinta iyo maaragtay doorashooyinkeeda deegaanadooda ka dhacday ay ku wado gacanna ay kula dagaalanto cadowga argagixisada arxalaawayaasha ah way isku awoodaa wayna ka shaqaysa galmudug inay gacanna dhismaheeda iyo dib u dhiskeeda iyo dhiirigelinta iyo maaragtay doorashooyinkeeda deegaanadooda ka dhacday ay ku wado gacanna ay kula dagaalanto cadowga argagixisada arxalaawayaasha ah way isku awoodaa wayna ka shaqaysa haddaan maanta arrinkan hadda inkaga hawshaan oo dhamaato waxaan rabnaa inay la dardargeliyo in yar baa u dhiman in yar baa hartay dhulkii ay intaa dhibaatada ku hayeen waa laga soo xoreeyey in badan oo ka mid ah maantadan deegaano intaasoo tuulo ah laga xoreeyay berri iyo maalmaha kusoo xigana way soconaysaa insha allah waxaa dhimani waa dhammaystir ee hadda dagaalkoodii bilowna maahan dhexdhexaadna ma joogo wuxuu joogaa dhammaadka aan wada dhammayno insha allah daan nahay dagaal cadow lala galo noloma sheegee wax yar aan soo kala dabamarnay intaan soo kala daahnay waa inta yaroo hadda ay u dhimane intaa dhiman aan dhamaystirna daahan aan uga soo baxno reer galmudug sidii lagu yaqaanana waan uga soo baxnay aan ku dhamaystirna insha allah mar kale waxaan leeyahay oo rabaa in halkaan aan ka uga ammaan iyo bogaadin uga jeediyo bulshada reer balanballe kuwa qurba joogta ah iyo kuwa gudaha joogaba isku tashiga wada qabsiga sida ay u dhisayaan ama ugu soo jeedaan dhismaha dalka gaar ahaan degmada waa ku ammaanaya annaga dowlad ahaanna dhiirigelin weyn bay noo tahay deegaankii wax qabsanaya annaga wuxuu nooga duwan yahay deegaamada iska sugaya shay walba oo qabsoomaya oo loo qabto iska sugaya marka wuxuu yidhi hal lagu qaaday isqaabi reer balanballe waa isqaabiyeen waana la qaadaya haddii laa yihahdo inta ka dhiman waxaan codsi kun jeer ku celinaynaa oo aan dalbanaynaa inay inta yaroo caqabada horumarka ku ah meesha aan ka wada wareejino wasiir cabdi maxamed jaamac iyo wasaaraddiisana waxaan leeyahay waa ku guuleysateen waan idinku ammaanaynaa wasaaradda oo hogaaminaya wasiirka dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka sida wasaaradda usoo dhistay inta dhimanna waa dhisaysaan waxa koowaad oo ugu horeeya labadii meelood oo gogoshu ay noo taalay nabadda oo weliba la hormarinaya midda balanbal iyo gurcada dhexdooda ah ayaan rabnaa inaad dhigtaan marka reer balanballe aad iyo aad baad mahadsantihiin